muqdisho inay yeelato maqaam waxaan rabnaa aan cod dheer ku leenahay qofka diidana ee Soomaali baran doontaa muqdisho inay noqoto caasimad goboleed madax bannaan ee aan doorasho ma ahana magacaabis ku imaan haddii Ilaah raali ka noqdo weliyow cadde sidoo kale xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka sidoo kale madaxlaameedyada dhammaan inta ay ka kooban yihiin weliyow cadde dhalinyarada rag iyo dumar odayaasha iyo reer Waaberi waxaan idin leeyahay dhammaan salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaas waxaa ii xigi doona waxaan rabaa horta farxad ay tahay aniga inaan joogo caawo degmada Waaberi waa degmadeeda waa degmo ilbax waa degmo xadaari ah marka qof waliba oo degmadan joogo fursad u helay inuu ku noolaadana sharaf ay u tahay waana ku faraxsanaa weliyow cadde waxaan deganaa aniga ku dhashay Wardhiigley gudoomiyaheedana wuu joogaa sidoo kale waayihii dambe waxaan ku noolaa degmada Waaberi oo ilaa haddaba aan ku noolahay waana ku faraxsanahay mahadsanidin caawa waxaan joognaa habeen ay mudan tahay in maaragtay loo mahad celiyo qof waliba oo ka shaqeeyay oo gudoomiyaha degmada iyo tiimkiisaba ugu horeeyaan sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadirna waan salaamaa waxaan soo marnay doorashooyin dalkan kala duwanaan soo marnay waxaa la soo maray xildhibaan in lagu soo doorto hal qof oo oday ah oo nabadoon ah oo go'aan gaara oo dhaho qofkaana xildhibaan oo noqon karaa qofkaana xildhibaan ma noqon karo dhaho waa laga soo gudbay waxaa la soo gaaray 51 qofood inay xildhibaan soo doortaan mar kale waa laga soo gudbay waxaa la soo gaaray 101 xildhibaanka inay soo doortaan maanta xukuumadda dan qaran iyo madaxweynaheeda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxda maamul goboleedyadaba waxay ka shaqeynayaan doorasho qof iyo cod ila aado waxaana rajaynaynaa doorashadaas qof iyo codka ahna inay noqoto tii Soomaali u horseedi lahayd nabadda baraaraha iyo horumarkaba insha Allah tacaala markii aad qof soo doorato oo aad waqti iyo juhdi bixiso ee muddo aad meel u taagneed waxaad leedahay la xisaabtankiisa aad leedahay waxa uu soo kordhiyay iyo waxa uu nusqaamiyaba inaad kula xisaabtantaa leedahay laakiin qof soo xariiftamay oo maaragtay farsamo ku soo qaatay kursi waa adag tahay inaad la xisaabtanto waxa uu garto inuu ku qabto maahan wax kale inuusan ku qaban yaa dhici karta aniga waxaan ka tirsanahay golaha shacabka sidoo kale waxaa jira dastuurkii oo la dhameystiraya waxaan hadda aan sugaynaa in maaragtay aan ka doodno wax badan ku soo kordhino cutubka shanaad haddii Ilaah raali ka noqdo cutubkaas shanaad waxaa ku jira muqdisho inay yeelato maqaam waxaan rabnaa aan cod dheer ku leenahay qofka diidana ee Soomaali baran doontaa muqdisho inay noqoto caasimad goboleed madax bannaan ee aan doorasho ma ahana magacaabis ku imaan haddii Ilaah raali ka noqdo waxaan rabnaa muqdisho ayadoo maqaamkeeda leh aragtideeda leh wax soo saarkeeda iyo bilicdeeda uu u taliyo cidaa adinka soo doorataan oo qofka aad soo doorataanna aad kula xisaabtami kartaan waxa aad ku soo doorataan in la gaarsiiyaan rabnaa baarlamaankuna wuu ku mahadsan yahay inta uu ka soo qabto dastuurka inta dhiman dhameystirkeedana waxaan rajaynaynaa bilahan inay soo gabagaboodo hadduu Ilaah raali ka noqdo reer Waaberi iyo weliyow caddaba waxaan leeyahay qof leediin soo magacaabay macna idiima keenayo idiimana soo kordhinayo waxaad u baahan tihiin qof aad doorateen qof aragtidiisa idinka gaday golaha deegaanka ee hadda loo madlan yahay waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala si dhab ah inaad oga dhabeysaan fulinteeda sida aad hore oga dhabeyseenba isdiiwaangelinteeda biidnillaahi alkariim